munaasabadani oo ka qabsoontay magaalada Hargeysa isla markaasina ay soo qaban qaabiyeen ururka akhriska iyo qoraalka ee hal qor ayaa waxa suugaan kala duwan oo ay sameeyeen abwaaniinta kala Mukhtaar Cabdi Axmed Qodax iyo Maxamed Cabdilaahi Maxamuud Gabi ay halkaas ku soo bandhigeen waxaana ka qayb galay abwaaniin qoraayo iyo dhalinyaro kala duwan oo xiiseynaya habeenkan la magac baxay habeenka hibada suugaanta ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay Ridwaan Hiraab oo ah gudoomiye ku xigeenka naadiga akhriska iyo qoraalka ee hal qor waxaanu sharaxay muhiimadda bandhigani baahda abuurka iyo qoraalka ee hal qor waxay u taagan tahay sida uu dhiirigelin lahayd qoraayada iyo hal-abuurka kala duwan ee la imanaya hal-abuur cusub markaasi kusoo kordhinaya bulshada labada abwaan Maxamed Cabdilaahi Gabi iyo Mukhtaar Cabdi Axmed Qodax waa laba abwaan oo kamida laba hal-abuur oo kamida hal-abuurada Somaliland runtii caawa waxaa la jeediyaa in si fiican cudurtooda suugaaneed ay noo soo bandhigi doonaan geestooda abwaan Ismaaciil Jiheeye iyo qoraayadii kala duwan ee madasha ka hadlay waxay sheegeen inay muhiim tahay in la dhiirigeliyo hal-abuurayaasha dhinaca suugaanta suugaani waxay u kala baxdaa laba qaybood qayb la yiraahdo suugaan dhab ah iyo qayb la yiraahdo suugaan mala awaal adduunka afkay doontaba ha ku soo aroorto luqaday doontaba ha ku taalo suugaani waa fiction ama waa wadnaha ay sarano sanbabada ay qalano dhiigga saydhinaya buu dhiirigelin baynu baahanay qofka wax soo kordhiya dhiirigelin baynu baahanay waxa kale oo mahadnaqaya runtii aan u mahadnaqaya naadiga akhriska qoraalka hal qor oo runtii markasta u taagan inay soo bandhigaan inay dadka maskaxdooda doojiyaan inay soo barxadda keenaan ay soo shaac saaraan dad fara badan oo ay ka dhex buuxayso maxaan ku raayay afkeeni iyo suugaanteeni iyo dhaqankeeni annagu waxaan ka qornaa qofka xigmadda iyo caqliga ku dhan yahay ee doonaya ummadda inuu la wadaago waxa maskaxdiisa ku jira hadday noqoto gabay hadday noqoto hal-abuur kale saasoo tahay ninka abwaankii wuxuu ka hadlaa hadba xaaladda taagan isagoo marxalado kala duwan muxuu ahaa waxay nooga taataabtaa sidaasoo tahay waxaan muxuu ahaa ku dhiirigelin lahaa labada abwaan in suugaanta jacaylka ay noo badiyaan geestooda abwaanada bandhigani gaarka u ahaa ayaa iyaguna suugaan kala duwan oo iskugu jirtay gabayo maansooyin iyo geeraaro ka hadlaya arrimaha jacaylka qabyaaladda iyo waxbarashada halkaasi ku soo bandhigay annada haddaad iyo dadnimada asluubta cishqi ugu dabaashee deeqa qurux wanaagay anna damashka bilicdiiyo daadaxdii xijaabkan kugu doorta adige saaxiib obaamow xalay baan saqdii dhexe hurdadii ka salalo suubantaan jeclaaba sahal iigu timiyo hadalkaan sugaayey iigu tidhi si dalag oo siyaro fudoonad filayn qaska iyo maroorsiga intaad qurus ku doonayso qabiil weli qumaatiga yihiiyo lama qaleeyaanka quwadaysan maysaan walee qaharna waad joog cilmigu waa sidii hogol roob iyo daruur heegada goysood hanqarkeeda maqlaysiiyo horimaadka dhacayiyo hilaaca isku talaalmay waa Idruus Bershiya telefishinka Universal Hargeysa.